كان ورك اللي قبلهم هذا ومن يقتل مؤمنا متعمدا قف مؤمنا كسود لا محالي محاكو حاجه فجزاؤه جهنم بس ويبقى ما طيب قورها حريه iyo diyaa dhiibe iyo meesha ma taalab fataha waxa ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم reer Madiina waxay yiraahdeen markay bakaaraha soo socdaan laba baawura jirto oo BLK kuna la mar faray maraan intay maraan shaqaalay ka leexdaan ama intay meel ay ka leexdaan kuna tarbuun toos waxay u maraan banaadir markaas tarbuunka maraan bakaaraha ka sii galaan kuwa bakaaraha u socday banaadir maraay waxa la yiraahdaa bakaaraha toos ali yiraahdaa markuu kirishmaygu naadinayo wuxuu leeyahay bakaaraha toos markuu wad faanto meesha u socdo ma raacaysa dad shaqaalaha rabtid marka daayid waxaan ku keenay qofkii qof mu'min dila diya bixinaya iyo waxbuu samaa wama yaqtul mu'mina muta'ammidan hawa bakaaraha toos wa meel dhaxma jirtaba ha bakaaraha toos waay marka waxa la rabaa quraankeena inaan la noolaano oo arrimaha uu inoo sheegay intaan hoos u fiirino ahna muxuu inoo diidan yahay muxuu inoo ogol yahay afala yatadabbaruna alqur'ana soo quraanka badhay am ala qulubin aqfalha marka in la iska ilaaliyo oo quraanka wuxuu sheegayo maal aan maanta in la xisaabtami doona wadankeena wixii ka dhacay waad aragteen iyo rafaad ka dhacay dadkii isku eriyada isku burbursaday wadanka dhexdiisa maanta hadaa tiriso ayaa ka joogaba adduunyada waa yar oo la joogay meesha rasmiga ee isugu tagi doono waa aakhiro wama alxayaatu dunya adduunyada ma ahana illa lahwun wa la'ib wa ciyaar iyo maalmo yar lagu yar mashquulo wa inna al-aakhirata lahiya al-hayawan meesha nolosha rasmiga ay ka jirto waa aakhiro marka meesha rasmi loo noolaan lahaa hadaad iska qasto meesha aan toos loo noolaanaynin ee waxooga inta leeyna joog laga tagayaan aad tiraahdo hadda ii tahay meeshan aan camiro khasaaro waxa qofka ku dhacaaya aan laga soo kabanaynin marka adduunyada way yartay aakhira ayaa ballaaran yaynan aakhira iska halaynin qofku waxa raba hamigiisa inuu noqdo maanta waa adduunyo barina waa aakhiro ilaahay maxaa loo hortagi doontaa laakiin reer hebel aan ka tirsanayo nooc hebel aan ahay iyo xagay ka dhacdayo hadhow waxaasoo dhan waxay taraan ma jirto wataqadda'at bihim al-asbab dadka wixii isku xiri jiro dhan way go'ayaan qof walba iyo amalkiisa hor yaala marka ilaahay wuxuu noo tilmaamay saan ku noolaan waxay tahay inaan quraankan ku amal fano waa dastuurkeeni waa manhajkan ku noolaan lahayn taas waa mid kale waxaan soo qaadanay maanta ummadeenu qayladeeda iyo murankeeda iyo ana fiican ayana inta ka dhacay ana mucaarada ana muhaafada qof walba uu ordaaya maxaa la sameeyaa marka waxa la sameeyaa wax dadka ka dhaxeeyo oo lama taabtaan horta way inay jiraan diinteena islaamka waa ra'sumaalkeena wadankana waa saas waa qadiya masiiriya wadankeena inaga iskale masiirkiisa iyo arrimihiisa waa inaan ka tashano laakiin in looga taliyo lina noota tilmaamo waa wax aad looga xumaado Soomaalida kalsoonida dhexdeena ay intay baabacday yaa dadka qaarkii kalsooni waxay ku qabaan waxa la yiraahdo beesha caalamka iyo banaanka markaas inagiina isma ogolin kuwaas waan ogolnahay hadda isbuucan ma aqaano waxa tagay Hargeysa waxa tagay kitin kii oo qaramada midoobay Soomaaliya qaabilsana si loo soo dhaweynayo iyo sida uu shir jiraan u qabanayo waa kitinada hay farmaajo tag waa kaas ma la yeelaan kitin iyo farmaajo yaa reer waqooyiga reer Hargeysa xiga والله فرماجة حاجة كتير محيسوين يعني نصبنا كمان دحيو اسكو ابتر معها اسلامني ما كمان دحيسو اسكو اسلام معها ما هكا دحيا وحلا لا ياب حاجه لو تاغا حاجه عيدو ديديسا ماله لكن Soomaalideena oo walaalaha ah aan isu imaano aan wada tashano aan wixii inaga halaysan aan isla saxano aan dhameysano dadka qaarkiis waxay la tahay buur meel laga qaadayo oo kale oo maxaa mushkilo jirta yani walaalka maxaa ku diidaysa waxbuu iga halay wuxuu ka halay inta la isaga imaado hal iska raali galiyo Soomaalideena waxay ku fiican yihiin dad ma aha yani uqdad badan oo arshiif male yani gadaal wixii la soo dhaafay Soomaalidu aad uma xusuustaan hadba wixii jooga maanta wixii jooga bas waxaas la sheekaystaan wixii la soo dhaafay male inay saas waxa ku tusaysa imise madaxweyne ayaa barihi la soo dhaafay lagu kacsana oo la kan madaxweyne hebelow inta uu madaxweynaha yahay lagu kacsan yahay maalku wareejiyo cid sheegaysa male warsaasay la meel laga galaa waay wax ka jira male meel laga galaa malayn markii hadba markaa joogo ma lagu kacsan yahay marka waa wax intaas ku simanay wax arshiif oo gadaal oo umadu yani dad gadaal uqdad u qaba manihin bas waxay u baahan tahay xogaa yar farsamo oo in la isu garaabo marka oo walaalayaalow waxba inaga khaldamay waa inaga wada khaldameen
cid gaar ayda keligeed khalad kale u samaynaysa oo dadka kale ay malaa'ig ahaayeen ma jirin dad kale iska wada dhaaf inta ilma adeerka isla dhalatay yaan is dulminin cid walba oo Soomaaliya way is dulmisay waxa la markay intii wixii dadka dhex maray adduunyaha la joogaa wali lama dhiman wala nool yahay toobad way furan tahay ilaa qoraxda ay ka soo baxdo meesha u dhacdo wixii dadka dhex maray haday isaga imaadaan oo la iska cafiyo oo la isu arin sheegto ilaahay toobadaas uu aqbalaya wuuna jecel yahay inna allaha yuhibbu at-tawaabiina wa yuhibbu al-mutatahhiriin marka intii dib loo laabto la yiraahdo walaalayaal wixii na dhex maray naf iyo shaydaan ay ka ahaadeen aan is cafino